waxaa magaalada London iyo dhammaan dalka UK ka bilowday doorashooyinkii qaran ee baarlamaanka iyo kuwii degmooyinka iyadoo doorashooyinkaasi dhici doonaan bisha May 2010 iyadoo lagu arkayaba goobaha cod raadinta muwaadiniin Soomaali ah oo iyagu isu taagay musharaxnimada degmooyinka ay ka mid yihiin magaalada London waxaana ka mid ah Cabdiwali Maxamuud oo ka socda Liberal Democratic Cabdiwali Maxamuudna waxaa loo doortay inuu isu taago Liberal Democratic ee degmada Camden waxa uuna doonayaa inuu noqdo codka idin kaga dhex waxaan ku jirnaa waqtigii doorashada runtii hadda idin sheego anigu waxaan u istaagay oo xisbiga aan rabo aan u doortay dad badan waxay aaminsan yihiin xisbi hebel maarad ka fiican طبعا qofka asaga research ka sameynaya waxa xisbigan u doortay sabab aniga aan maaragtay arkay markii aan darsay waxaan kala doorashada ugu istaagay aniga da'daydu ma yara laakiin in aan tusno dadkanaga aniga sida ila tahay wadada lagu gaari karo guusha inay tahay in laga qayb galo siyaasadda siyaasadda xisbigan kamid ah in iskuulkii laga dhigo klaaskii 15 ardada waxa kale oo kamid ah siyaasadda ah in jaamacadaha fiigii laga joojiyo dad dan yar aan nahay dad shaqaale aan nahay shaqaysta 10,000 wixii ka bilowda hadda 3,000 baa wixii ka bilowda 3,000 iyo wixii ka yar lama canshuur Soomaa annaga siyaasaddanadu waxa weey 10,000 inaan la canshuurin soo dhawaada Habin Wanasang Mahad Sanadin Maga Agua Edfordham doorashooyinka soo socda ee qaran xisbiga Liberal Democratic-na waxa uu taagan xubnaha baarlamaanka ee waaxda cusub ee Hampstead iyo Kilburn Edfordham waxa uu ku caan yahay oo lagu yaqaan la shaqaynta bulshada iyo jaaliyadaha waa muwaadin Ingiriis ah firfircoon oo go'aan qaadashada ku wanaagsan isla markaasna si gaar ah oo feejigan arimaha danyarta u fiiriya waxa uu ku nool yahay xaafadda Kilburn si hoos oo gaar ah ayuuna u yaqaan xaafadda wuxuuna maamula ka yahay iskuulka Hampstead. I am a governor at Hampstead School. I see many of the young Somalis at that school, in particular boys. Many of them do not know Somali, they do not speak Somali, and their parents do. ummadda Soomaalida uu og yahay dhibaatada haysata qaxootiga ay ku jiraan kuwa hadda wadankii ku maqan in meel walba xaal ku qasan yahay maxay ugu talagalay inuu ka qabto oo uu hawsha ka qabto musharaxa MP-nimada u tartamaya Kilburn xaafadeeda iyo Hampstead wuxuu noo sheegay inuu wax badan qabanayo oo wax ka qabanayo dhanka waxbarashada dhanka caafimaadka dhanka guryaha dhan walba inuu wax ka qabanayo wuxuuna waxa qofka waajib uu ku yahay hadduu yan wadanku ku nool yahay siyaasadiisa uu yan arag oo ka qayb galin dhagartiisa iska celin kari maayo problem badan aan ku qabnaa oo haddaan election registration iyo waxa uu sameeyno marka daan wadankii nationalitygiisa aan qaadanayno waxa haboon inaan election registration aan sameeyno because wax badan aan faa'iideynaa markaan halkaan imaanay waxa dhacay dad traumatized ahayn runtii dad naxsan ahayn oo dadkoodii ka soo tagay oo dhibaato soo maray oo maaragtay maxaa dadkoodii qaar badan ay dhinteen qaar badan rafaad ku yimid maanan ka fakaraynin siyaasad iyo waxaas maxaan ka fakaraynay kaliya maaragtay sidee horta u noolaataan sidee meel u heshaan sidee hoy u heshaa iyo waxa nala siinayo guriga iyo maaragtay waxbarashada sidoo noogu sheegay education in xoog laga saarayo waxa muhiim nooga ah in caruurtayni luqadooda afka Soomaaliga iskuulka looga dhigo Somali community in Camden has seen a lot of knife crimes, young people who were underachieving. And I strongly believe with the strong leadership of and lead them in London Borough of Camden and the amount of work this gentleman has done. If you win, how can you help minority people and especially Somali people? Well, I think that
the most important thing is to be communicating with all different communities. So I've done a lot of work with Abdi Wali Mohammed, with the Somali Youth Development Resource Centre. sidaad wada arkaysaan ba dadkan dhabarkayga taagan waa guddigii iyo weliba dadkii iyagu isku sharaxayay Labour Democrat oo isagu markaasi ah xisbi u tartamaya jagada waxaan markaa ku soo dhaweynayaa oo isagu ah qabanqaabiyaha xafladani aynu isagu nimid maanta runtii farxad waxay u tahay Soomaalida laftigeeda u tahay oo degan Kilban ama area dhan ama London oo dhan inay ogaadaan Soomaalida inay xaq u leeyihiin inay marka hore register ay sameeyaan markaas ka bacdina ay xaq u leeyihiin inay u yimaadaan xataa xisbiyada inay igu raadiyaan ma ahan haddaad register garaysid dad badan isku register garaysan xisbiga asoo socdo Soomaalidu u imaanaya noodinay Soomaalidu xisbiga aado sababta cod baad leedahay codkaagaasna way ogyihiin xisbiga markay computerka fiiriyaan ama registerka in Soomaalida ay cod ku leedahay meesha sidaas muhiim waxay u tahay Soomaalida marka koowaad inay u baahan yihiin inay register garayaan registerku waa wax ka muhiimsan inaad codeysid waa wax ku ogolayna inaad codeysid laakiin registerku waa muhiim meel kasta Soomaalidu joogaan xisbiga arto code laakiin marka hore waa inaad register garaysaa Axmed Cabdi Qaadir Axmed Wariye ETN London